بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا سو dhawaada waan idin salaamay kasoo dunida ku joogtaan waxaan rabaa inaan idin la wadaago daawo infectionkii cudurada u roon waadsa cudurka socda daawo u roon tahay daawadan hal isku dadaalo waxaan wax ilaaha dadka qaban karo waaye ilaaha naga qabto a'uudu billaahi ilaaha ka magan galnay marka insha Allah basasha way fiican tahay basasha midda cadda iyo midda gaduudaba way u fiican tahay cudurada infectionka oo dhan ay u fiican tahay marka waa kasaa iyo black pepper waaye waa filfil midda shiidan iyo midda kalaba waa daawo iyadana marka shaaha lagu darsan shaaha hadii lagu darsado hadda waa la isku hagaajin karaa malabka iyo waxaan dhan waa intii la isku shiida lagu sameyn karaa weel lagu shuban karaa marka basasha gaduudna daawo waaye daaway u tahay marka la iska taxtiro gurigeena yaa laga weynin basal toon waa ujeedaa toonta badsada ma ahan marka caafimaad qabtid marka xanuunsantahay inaa cunto waa ka sanjibiil waaye kana marka uu fiican yahay asagana intaan oo dhan hada qaar qayb loo qaadi karaa waa liin waa la shiidana insha Allah qofku rabo hal mar uu shiidan karaa qof kale malab waaye malab saafiya waaye kan raadi malab saafiya marka insha Allah waa malab saafiya marka waxa isku darsan kartaa ayagoo dhan inta qayb ka qaado oo shiido guriga inta dhigatida ay qaado subaxii habeenkii markaas xaniisidu cabi kartaa malab saafiya waaye kana malabkana muhiim waaye marka cuduro badan infectionada badan infection meeshu ka imaado ilmaha way u fiican yihiin ilmaha oo goryaanka cunaayo iyo waxaas oo dhan u fiican yahay marka insha Allah waxaan isdhahay asxaabtaada la wadaag walaalahaaga la wadaag guriyihiin ay ka bixin yaa laga weynin guriyihiin ujeeda basal cad iyo basal gaduud labadaba ma sha Allah oo u fiican tahay jirkaaga oo dhan dhiigaaga oo dhan nadiif ka dhigayaan oo clean ka dhigayaan dhiigaaga wareegiisi caafimaadka madaxa adaaba ka dareemay hadda isticmaashid marka daawadan insha Allah waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago faa'iideysta walaalayaal guriyihiin ayaa laga weynin waa wax iska easy ah oo meel kasta yaaliin oo jikooyinka daa laga helaayo waaye oo marka jiko kasta inay yaaliin laga yaabaa inaadan ogeyn inay daawo ku tahay marka ina qaab kale oo isticmaashid oo qudaarta ku darsatid laga yaabaa marka ay kaligooda la cuni karaa ay kaligooda oo la shiidan karaa ay kaligooda la jarjaran karaa la cuni karaa marka asxaabay waxaan isdhahay asxaabta la wadaag maadaama caafimaadka yaraaday caafimaadka ummadda dhan waa iska yaraadeen marka ilaah caafimaadka noo kordhiyo ilaah naga qaado cudurada ilaah caafimaad hana siiyo insha Allah marka hal isticmaalo oo u fiican tahay jeermiska oo dhan ay dilay dhiigga dareeraha si fiican u dareersiinayaan insha Allah marka asxaabteeda channelka daawanayso waa Ahlam channel marka asxaabteeda soo dhawaada waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago waa black pepper malab saafiya waaye malabka iska fiiri malabka fadhiisto ha cunin waa sokorta ayada bedesho fiirso mal markaa gadanaysid malabka inuu fiican yahay fadhiisaneen hadda tijaabi ha cunin fridge kali haduu fadhiisto malab fiican ma ahan hadii 2 bir 3 bir daa fridge ka galisid oo degi waayo oo kaas waa malabka fiican marka asxaabteeda meel walba aad joogtaan caafimaadkiina ka dadaala malabka saafi la gato malabaan saafi ahayn dadka waa khiyaano ganacsiga marka gadanina malabaan saafi ahayn asaga cudur inuu idin keeno laga yaabaa marka ka taxtirana lafihiina toontana ma sha Allah la badsado toonta la badsado inaa cuntada waxaan u naqaan anaga cuntada la ku darsano sideeda kalaabdaday anface sideeda kalaab loo cuni karaa marka asxaabteeda intaasaan jeclaystay inaan idin la wadaago marka
channelkan ka aan idinkala hadlayo waa Umaxlaam channel. waxaan idinkaga tagayaa salaamta islaamka oo ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.